Assalaamu calaykum. Kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal. Weli waxaan idiin wadaa muuqaaladii yaryaraha ee ku saabsanaa arrimaha qoyska. Maantana waxaan idiin wadaa ayaad is leedihiin bishaaro. Waxaan soo gudbinayaa sifooyinka ninka farxad gelin kara gacalisadiisa. Haddaba waa mowduuc muhiim ah kaas oo la doonayo in wax badan laga ogaado. Sababtoo ah waxaa jira markii aad eegto khilaaf in badan soo dhex gala dumarka iyo ragga. Haddaba saddexdan qodob haddii aad qaadato ilaa iyo afartan qodob waxaan hubaa ama aad ku dhaqantana inaad noqon doonto mid gacalisadiisa farxad geliya ama qofka uu xiriirka la wadaagayo ay noqoto mid oo ku qanacdo asigaba. Haddaba markaad eegto sifooyinka waa kuwa kugu kaabaya in aad markaad eegto farxad geliso qofka aad jacaylka la wadaagayso. Haddaba farxad gelinta gabdhaha ma ahan wax adag sababtoo ah waxaa jira waxyaabo fudud oo ninka kaga farxin karo gabadha taas oo keenta in gabadhu si weyn u sii jeclaato. Haddaba maxay kala yihiin? Haddaba waxaa ka mid ah waxyaabahaasi aad ku calma karto gacalisadaada ammaanada. Haddaba ninku haddii uu yahay nin aamin ah ma ahan in aan ilowno aaminnimada ninka iyo run u sheeginta markaad eegto marka uu gabadha la hadlayo iyo farxad gelinta gabadha sababtoo ah ninka aaminka ah waxuu gacalisadiisa ka ilaaliyaa meel kasta haddii ay tahay dareenkeeda, sharafteeda, quruxdeeda iyo wax weliba oo caafimaadkeeda dhibaya. Waana sifooyinka dhammaantood ama sifooyinka waa kuwa dhammaantood ah kuwa fiican oo qofka lagu jeclaan karo. Ninka ammaanka ah waxa uu farxad geliyaa gacalisadiisa sababtoo ah ma sameynayo wax dhibaya iyada sababtoo ah waxa uu ilaalinayaa nafteeda oo isaga uu jecel yahay wuxuuna doonayaa in uu mas'uul ka noqdo ama uu ammaan ka noqdo ama ninka ammaanka ah waa nin shakhsiyadaas leh mana ahan mid dibadda lagu tuuri karo. Qodobkeena labaad wuxuu noqonayaa mas'uul. Ninka haddii uu mas'uul yahay mas'uulnimadu waa door muhiim ah oo shakhsiyadeed. Ninka sababtoo ah ninka mas'uulka ah wuxuu ilaalinayaa mas'uuliyad ka saaran gabadha iyo wax walba oo dhankeeda markaad eegto looga baahan yahay dhankiisa looga baahan yahay. Waxa uu garanayaa in isaga laga doonayo in uu raali geliyo kana farxiyo gacalisadiisa. Marka ninka mas'uulka ahi wax walba wuu garanayaa waqtiga looga baahan yahayna isaga ayaa garanayaba. Qodobkaana waa kaftanka. Marka kaftanka ku leeyahay ma ahan kii caadiga ah. Ninka kaftanka badan waa mid ka mid ah dumarku ragga ay jecel yihiin weliba tartan la'aan. Haddaba haddii aad tahay nin aad u kaftan badan dumarka ka qosliya hambalyaan ku leeyahay. Ninka kaftanka badan wuxuu si dhib yar u farxad gelin karaa gacalisadiisa isaga oo mar walba ka qoslinaya dibnaheedana ku haynaya dhoola caddeynta. Haddaba ninkaasi ama dadka calaamadahaas lehi waa kuwa cajiib ah ama calaamadaha kaftanka ragga lehi way ka duwan yihiin ragga kale. Qodobka ugu dambeeya kan aan u arkay inuu yahay kan ugu muhiimsan qodobadii kale kan ugu muhiimsan waa daacadnimada. Inuu ninku noqdo mid daacad u ah gabadha uu jacaylka la wadaagayo. Markaad eegto jacaylkeeda iyo dareenkeeda waa sifo muhiim u ah farxad gelinta gabadha. Gabar kasta markaad eegto sidaas darteed ma jirto wax ka fiican in uu ninku noqdo mid daacad ah marka uu hadlayo waana sifo muhiim ah. Been ha u sheegin, ballan ha uga bixin, wax walba daacad u ahow. Xaqiiq waxaa noqonaysa in gabadhaasi ay noqoto mid adiga dhankaaga u soo dooqda oo mar walba kuu soo dhowaanaysa. Haddaba saddexdan ilaa afartan sifo haddii aad samayso waxa xaqiiq ah in aad noqonayso mid markaad eegto ay dumarku jecel yihiin ama farxad geliya gacalisadiisa. Haddaba haddii aan dib kuu xasuusiyo maxaa ka mid ah? Waxaa ka mid ah markaad eegto ammaanada. Nin ammaana noqo oo markaad eegto farxad geli gabadhaada oo waxyaabaha ay u baahan tahay markaad eegto mas'uul ninka aan mas'uul ahayn horta kaa farxad maba geli kara. Nin aan mas'uul ahayn oo waxyaabaha looga baahan yahay aan kaa fikirin kaas maba ahan mid oo macnaha farxad geli kara dumarka. Kaftanka haddii aad kaftan low tahay horaan kuugu sheegay waxaad tahay one of the best. Kan dumarku ay rabaan daacadnimada ayaana u arkay kan ugu muhiimsan. Muuqaalka intaas ku soo gabagabeynaya waxaan jeclahay in aad gabagabada aad subscribe inoo saarto oo aad nala sii joogto si aad u hesho muuqaalada aan sida maalinle halkan u soo gelino waad ku